raggu miyayna ka dhargin dumarka ragga dumarka ma dhargaan waana wax nature ah waa sababta fiiri waxa ugu weyn ee bini aadan loo ballan qaaday janno waaye ilaahay markuu ragga jannada u ballan qaaday waxyaalaha ugu soo dar dumara ku jiro waxaa la ninkii jannada shaqaysta wuxuu heli doonaa dumar xural ciina adduunka markii la joogo waxaa 4 xasan loo baneeyay waxaa ajiib marka gabdhaha ku fikiraya in nin naag ka ilaalin karaan I don't think hawsha soo fudud qof baa ku yimaada ee qofkiisa isku dhacsan yihiin gabar wiil isla sheekaystaan ama gabadha ama wiilka mid kamid baa ku yimaada maxaad kula talin lahayd bis maxaad fikir oo siin lahayd waa maasan tahay anoo ku taageera rasmi su'aashaada marka u guda galo qof wax jecel oo qofkiisa ka caraysan marka uu ku yimaado horta waxaan la alaabtaas yuusan warkaa tegin aad iyo aad صح haddii tusaale ahaan saaxiibta oo ka caraysan jecelkeeda ay ku timaado aad iyada la safato aad tiraahdo ninkan nin xun waaye iska celi inta ka dhac inta ku bood berri markay la heshiiso wax walba u sheegi doontaa meena wareerku waa nabad adag ku dhaweysaa marka waxaa leedahay qof laba qof isla sheekaysan hadii ku yimaado mid kamid ee ilaahay isku kin barakay on raaci yani si general ula hadal iska ilaali adni inuu emotion inta ku qaado qofka la qiirootid ilaan qofka ku imaado qof ku calaacalaysaano iyo lasaane iyo shay yey ku qaadeen daqiiqadaas qofku wuxuu ku tusinayaa in asaga laga qaldan yahay qofka kale uu ka qaldan yahay marka haddii qofkii kaleeto aadna lacayso beri markii la heshiiyo dadkan waxaa weeye adaa meel yani ku dhumay infant marka sideedaba haddii qofkiisa ka caraysan uu ku yimaado si generaal weligaa ula hadal dhexdhexaad noqo xitaa walaasha kula dhalata hadday tahay hala safanin walaalka kula dhasha hadduu yahay hala safanin laakiin haddaa mid mula safatid berri waa waxaad kugu soo laaban doona micnaha ama ha isjeclaadaano ama ha isqabaano dadka qaarkood oo waxaa laga yaabaa inay sameeyaan gabar baa la qabaa xasiigeeda isku soo dhacayaan gabdhihii eeda la dhasho waxaa laga yaabaa masaaxibeed inay la saftaan dadkan yani eega iska kaalayo seekaadho marka dulucdu waxay tahay qof hadduu ku yimaado si generaal ula hadal يعني قفنا وصفنا هذا ما سنتعطوا السؤال لبعضهم كويدنا وحيت هاي محيت هاي دقنك وجحن الدمر كليهين دقنك وجحن الدمر كليهين وحليرة جزارنمو نبي صلى الله عليه وسلم كهلي حيالها دمر كنارتي وبدين لا حتى قدر كان كمتاعي جوده مركا أفرتن شيء وناجا أسمى الصو هذا هالمال قلت كسمى الصو حناق الحكولة ولا واحد بيمسمى صاحب يعني قلت كامر دعي بحسته وناجي بحسته صح marka xoogaa dhaqamo kale ragguba ma dhameystirno waxyaabo ay ku xun yihiin jiro laakiin dhaqanka ana asle ugu xun yahay dumarka ay leeyihiin intooda ugu badan waa jizaarnimada macnaha dabcan waana wax neejara oo ay ku beeran yihiin marka somehow isku dayna caradaada emotionkaaga controlsho isku day haddii qofkan aad isqabataan inaadin iloobin wanaaggeedin ka dhexeeyey iyo qofkan wixii uu ku sameyn jira macnaha marka dhaqankaas jizaarnimada asle dumarka xoogaa waa laga yara fiican yahay maadaama dumar ahay waxaan isleeyahay waxyaalaha dumarka ay ogyihiin ragga in anaga ku xunnahay yara faa'iideyso oo haddaa iska bedeli karo inaa iska bedelaa rabaa midda kale catoshka weydinaya waxay tahay waqtiga miyaa isbedelo mise dadka isbedelo noomaasanta rasmi su-aal muhiim ay weydiisay waqtiga isma bedelo laakiin wuxuu soo saaraa wejiga dhabta ee dadka iyagaa ku marmarsimooda oo yidhaahdo waqtigaa isbedelay waqtigaasaa noqday waqtigaas ma noqdo waqtiga waa midka soo saara wejiga dhabta ee qof kasta uu leeyahay macnaha qof baa maanta ku wanaajinaya waxaa laga yaabaa maanta inuu dankaa leeyahay dantii uu kaa lahaa markuu kaa waa wejigu kuu bedelanaya waqtiga isma bedelin qofkii isbedela macnaha qofka maxaa bedela duruufaha bedela marka dadka waqtiga ku marmarsimooda waqtigu isma bedelo laakiin wuxuu soo saaraa wejiga dhabta ah oo biniaadamka leeyahay okay aad u mahadsan tahay catoosh walaalkay su-aasha kalaan ku weydiinayaa waxay tahay maxay dadka ku kala tageen rasmi dadka marka laga hadlayo abuurista inta ugu badan isku muuqaala leeyahay laakiin waxa dadku ay ku kala tageen waa hamiga macnaha adiga waxaa laga yaabaa rasmiga maanta marka hamigaaga iyo hankaaga yani in uu yaasaa wax isu tari lahayd wax u qabsan lahayd meel isaga soo saari lahayd gabar kale oo asaaga waxaa laga yaabaa hamigeeda dhan inuu ku kooban yahay inay nin la hadasho inay nin la sheekaysato inay nin waqtigiiso maxaa ku kala tagteen labadiina marka hamigaa ku kala tagteen iyo hanka raggan waa saas qofka kale wuxuu ku dhaafi karaa hanka iyo hamiga iyo visionka ku dhex jira macnaha qof kastana wuxuu berri noqon doonaa waxa maanta uu ku fikiraayo saalaadliga dadku waxay ku kala tageen hamiga waa haddaa rabto in berri aad wax noqoto haddaa rabto asaagaa inaad dhaafto hamigaaga iyo hankaaga yani ha sarreeyo nabiga sal alay slam wuxuu dhahay qofka marka uu shaqaysanayo oo uu halgamayo ha u shaqaysto sida weligiis inuu noolaanayo macnaha
markuu cibaadaysanayana ha u cibaadaysto sida in geerida ay u soo dhawaato oo kale marka qofki inuu hami leeyahay waa waxaad u fiican dadka hamiga u kala tagan marka aad mahadsantahay walaalkii Catoosh sidoo kale waxaan ku weydiinayaa sideen ku ogaani karaa inaan helo qofkayga saxda ah waxaa jira rasmi wax la yiraahdo right person nolosha right person waa qofka saxda ah macnaha soo dadka qaarkooda muddo ku qaadataa inay helaan dadka qaar intay helaan laga yaabaa inay si fudud ku lose gareeyaan qofkaaga saxda ah waxyaalaha ku garan karto marka aad gabar tahay marka aad nin xiriir la sameyso yani xiriirkaas waxaa ku dareemaysaa adiga oo lagu guursan sida inaad marwata oo kale macnaha deganaasho ku dareemaysaa deganaasho waxaa ku dareemaysaa mas-uuliyad buuqa iyo isku dhac iyo problemkii faraha badnaa ma jiri doono yani waa xiriir aad ku raaxaysanayso just adoo xiriir keliya qofkaan la leh waxaa laga yaabaa inaad yani isu malayso u qaadato naag marwaa oo dhaqmayso oo reer leh inaad tahay sidoo kula welin laguma guursan aad iyo aad welin laguma guursan waxyaalaha qofka lagu qiimeeyo right personka laga garan kara as a man waxay tahay rasmi markaa wiil la socoto inta heshiiska leeyahay wiilkaas wuu ku wanaaji karaa waqti uu ku sii karaa wuu ku amaani karaa laakiin meelaha ninka ragga lagu qiimeeyo waxaa kamid markaa isqabataan oo la iskhilaafo siduu problemkaas u xalinaya macnaha ragga qaarkood waxaa laga yaabaa inuu kula ficiltamo oo emotionka adiga waqtigaas ku hayo kala asna inuu hayo laakiin ninka dhabta right personka waxyaalaha laga rabo waxaa kamid ah markaas inuu inta kaa roonaado problemkaas uu xalli kara macnaha soo ninka meelaha laga fiiriyo waxaa kamid ah sidee ayuu ninkan u dhaqmaa markaa isku dhacdaan markuu khilaafkii yani wanaagga ha fiirinin mar halka maraa isku dhacdeen siduu kuu raaligeliyaa siduu kuu qancin karaa xitaa isuu ku raaligelin problemkaas uu qancin karaa macnaha ma fahantay soo problemkan wax xalin karaa qodobkaas muhiim waaye gabadha meelaha idan laga fiiriyo waxay tahay intii heshiiska leeyahay sida wiilka u ixtiraamayso warkiisa u maqlayso u keergareynayso baahiyiisa iyo wixiisa oo dhan ay ugu sabrayso u sugayso meelahaas marka qofka right personka meelaha lagu garto waxaa kamid ah gabadha intii heshiiska leeyahay dhaqankeeda eeg wiilka marka la isqabto eeg oo khilaaf yimaado siduu wax u xaliyo markaas meeshaas lagu kala saari karaa isla dadka aad mahadsan tahay sidoo kale waxaan ku weydiinayaa Catoosh raggu miyayna ka dhargin dumarka rasmi ay fanaanada saada inay jeclaa loo naxariistay waxay tiri raggu naaga jeclaa dumarkuna urura aad iyo aad ragga dumarka ma dhargaan waana wax nee jira waa sababta fiiri waxa ugu weyn ee bini aadan loo ballan qaaday janno waaye ilaahay markuu ragga jannada u ballan qaaday waxyaalaha ugu soo dar dumara ku jiro waxaa la ninkii jannada shaqaysto wuxuu heli doonaa dumar xuralceena adduunka markii la joogo waxaa 4 xasan loo baneeyay marka raggu waxay la sameeyeen wax damac la dhahayo damac dumar saaladliga dumarka kama dhargaan waxa ajiib marka gabdhaha ku fikiraya in nin naaki ilaalin karaan I don't think hawsha solfood okay hawsha solfood ma sorry sababtoo ilaahina abuuray ba afar duun ugu baneeya aakhirana wuxuu yiri ninkii janno gal xuralceena meelaha la siinaya marka ragga dumarka kama dhargaan aad mahadsantahay Catoosh sidoo kale Catoosh waxaan ku weydiinayaa maxaa ilaaliyaa sharafka qofka bini'aadanka sharafka qofka bini'aadanka horta kow sharafka ada ilaalinaya qof muxuu ilaalinaya number 2 waxa ugu muhiimsan ee qof kasta sharafkiisa ilaali kara waa qabka qofka uu leeyahay maraba erey kibir inaad isticmaalo sababtoo bini'aadanana kibir nooma sugnaanin laakiin waa inaad qab leedahay qab markaa leedahay waxyaalo badan oo qiimkaaga iyo qiimahaaga aanan ahayn ma qaadinaysa macnaha marka qab leedahay dadku waxay ku fikiri doonaan inay yara kugu soo xadgudbin bini'aadanku sideedaba wax markay kula dhaqmayaan waxay ku qiimeynayaan adiga reactionkaaga macnaha markaa qab leedahay oo qiim aad leedahay qof kugu soo xadgudbaayo ma laha sharafka qofka marka waxaa ilaaliya qabka qofka uu leeyahay wax kasta oo kuu qalmin ha qaadanin dareenkaaga yuusan ku hayin caqligaaga ka soco qiimahaaga ilaali qabkaagana ha ku ilaali macnaha aad mahadsantahay Catoosh sidoo kale Catoosh waxaan ku weydiinayaa da'da ugu wanaagsan ee lagu guursan karo horta marka guur laga hadlaayo rag iyo dumarku kala duwan yihiin ninka waxaa u fiican inuusan yaraan ku guursanin marka mas-uuliyadda loo eegaayo laakiin dumarka waxaa u fiican inay yaraan ku guursadaan sababtoo ayaga waa warshad dhan wax soo saaraysa macnaha da markii laga hadlaa haddana neja ana waxaan isleeyahay waqtiga la guursanayo waxaa ka muhiimsan qofka aad guursanaysa macnaha saalaadigeed marka waqti waxba ha ka fikirin laakiin xoogga saar qofka aad guursanaysa macnaha marka ugu horeyso ay hesho qof asleeda oo right person oo guursan kartaa da'da rabta jir guurso haka laba laweynay hore u gal time waxa ka muhiimsan waqtiga qofka ay gal muhiimsan ani qofka guursanaysa ma santaa Catoosh sidoo kale waxa ku weydiinaya walaalkii Catoosh maxay tahay waalidiinta hadda jiro wax aad kala yaabtay waxyaalo badan jiro dhaqamo oo cajiib oo waalidiinta marka qaarkood ay leeyihiin
somehow waxaa ka mid ah waalidiinta Soomaaliya si u sameysay waxaa laga yaabaa qofka ugu dhibka badan caruurtooda oon u dhago nugleyn oo ku adag laga yaabaa haddana inuu ubadkooda ugu jecel yihiin leeyahay qofkaas waxaa waaye gartiisa gargar daradiisa gar laakiin qodob kala jiro waayahan soo kordha waalidiinta Soomaalida ay tahay in isweydiiyaan gabdhuhu quseeya waxaan arkay waalidiin badan oo gabdho dhalay gabdhahooda oo aan shaqeynina haddana biilo lacag siiyo gabdhiina ma shaqeeyaan ganacsi ma leh shaqo ma qabtaan haddana lacag waalidiinta siina waalidku ma weydiina lacagta inta ka keentay macna lacagtii qaadanaya intaas ka badan gabadhiya safreysa intaas oo dalisay kala gooshaysa derisno waxa waaye wax free ma jiraan adduunka marka waalidiinta hadda jira waa inay isku laabtaan waxyaalo badan gabadhii ma la qabo ma shaqeynayso hay'ado lama socoto way safreysaa meelay u dalxiisaysaa bishii markay dhamaatana reerka biilkooda u diraysaa samays weydinayaan gabadhaada maanta nin ma qabo ganacsi ma lahan hay'ado lama socoto xagee lacagta kaaga keentaa laakiin ayaga waxay u baahan yihiin biilka ay qaadanayaan in case waxaa laga yaabaa waalidiin qaar inay jiraan marab inaa waalidiinta ku fogaado hadday biilkaas waayaan buuqaayo oo gabadhina ku kalifaya mise wiilka ku kalifaya inay xoojiyaan social media ama meelihii ay u ordaayeen in lacag ka keenaan soo marka fikirkaas aan leedahay waalidiinta iska bedelaan ana taa waa kula qabaa that's great la qabto wax fiican walaalkii Catoosh waxa kale oo ku weydiinayaa xiriiradii hore ee qofka soo maray ma ku yeeshaa noloshiisa wax saameyn ah aad iyo saameyn xooggan ku yeeshaan tusaale waxa laga yaabaa rasmi dhowr wiilo kala duwan baa xiriir la soo sameys dhaqamay ku soo bareen qof cusub xiriir la sameynaysaa dhaqamada ay ka filanaysaa macnaha soo qofkana dadkii hore kala ma way kala duwan yihiin Soomaa marka saameyn weyn ku yeeshaan wixii marka dadka waxaa rabaa inay fahmaan dadkii hore noloshaada u soo maray sida ay kuula dhaqmi jireen waxba kama gelin qofkan cusub ee noloshaada soo geli doona macnaha haddii tusaalaan lagu soo koolkoolin jiray oo qof cusub nolosha ku darsato qofkan koolkoolinta ka weys ina carruurta maaha qofkan ay dadka hore isku mid maaha macnaha marka dadkii hore noloshaada u soo maray yaysan saameyn kugu yeelan dadkii hore noloshaada u soo maray si kuula dhaqmi jireen ha filan in qof kasta oo cusub noloshaada soo galo uu kuula dhaqmi doono dadka si u kala duwan yihiin ee dhaqamadan u kala duwanaan doonaan marka dadka qaar expectation-ka dilaa macnaha waxay hore u soo barteen xitaa anoo ku jiraa waa marar badan arkay isla sidii ana taa ku jira aniga maanta nin ay la sheekeysanayo haduu aad u naxariis badnaa ama yaani uu yahay qof aad u roon hadaladiis ay qawaayeen de yes man oo kala like yes man oo kala duha haduu mid serious man ay soo galo I say like oh ninkii hore ka fiican yahay maxaa qaldan buuq iyo stress joogti waxa laga yaabaa kii hore inuu kan ka fiican yahay laakiin yes man bartay marka dadka qaar that's great inay la fahanto dadka qaar marka saameyn adiga ku yeelataa xiriirada hore u sameeyeen okay walaalkii Catoosh waxa kale oo ku weydiinayaa waxa ugu muhiimsan ee gabadha inay ragga ka barato maxay tahay markaas waa shukaansi laga hadlaayo gabdhaha intooda ugu badan dhibaato meeshan kala kulmaan waxa keenayaan waxay tahay in badan oo kamid inay hasaaba fahamsaneen qodobka ugu muhiimsan oo gabar walba aan rabo inay ragga ka barato waxay tahay ninkan marka isaga uu ku rabo sida uu la dhaqanto ayuu isna kuula dhaqmi doonaa biri marka aad rabato macnaha gabdhaha qaarkood waxa dhibaato ay ka soo wajahdaa nin baa soo xiriirinaya rabitaankaas uu ku hormaraya aad u soo xiriirinaya waqti uu siinaya way ignore gareynaysaa si qaab darna u dhaqmaysaa biri ninkii laga yaabaa inay dib ka jeclaato isla ninkaas waxay ka filanayaan markii inuu wanaajiyo kooliyo no shalay aad maada wanaajin macnaha soo marka dulucdu waxay tahay qof kasta oo noloshaada ku jira xitaa haddaadan adi rabin yani wanaaji oo yaraan abaal ergosi beri haddii adna lagu wanaajiyo haddii xaaladda isbedesho soo waxaa leedahay ragga waa waxay aqaanaan tit for tat yacni haddaad xiriir kuusoo bandhigtaa oo rabin haddaad xiriirkaas ku xumaysid beri aad dib ka jeclaatid adna wanaag ha filanin xumaan filo marka waxaan ugu dhiirigelinaysaa inaan wanaajino oon afka u maceeno qofka wanaaji ixtiraam u muuji sharaf qasama qofka ina xiriirkiisa basiin laakiin wanaaji حتى walaalti ma saaxiibti ma soo dhawey aad ma hasantahay okay walaalkii Catoosh waxa kale oo ku weydiinayaa gabar waxay heshaan aad iyo aad u wanaagsan gabarna waxay heshaan aad iyo aad u xun sida ayaga u arkaan soo ma gabdhaha kala nasiib badan mise nimanka kala fiican rasmi nolosha nasiib ma aaminsana qof kasta life is a choice wuxuu asaga doortuu helaya laakiin badana waxaan sameeynaa mas'uuliyadda ka cararnaa macnaha qof baa dooranaysa adii qofkii waa kugu xumaanaya waxa leedahay waa nasiib xumo ma nasiib xumo qofkan adaa doorto shalay marka gabdhaha bisma ah xitaa ragga marka la fiiriyo qof fiican iyo qof xun labadaba hadaadan adigu u ogolaan noloshaada masoo galaan si ku kala ogaana marka dadka inay fiicin waxay yihiin caqligaaga raac ma jiro qof caqligiisa inta raacay qasaare macnaha laakiin problemku waxa keenaa waxay tahay inta ugu badan emotional fiirna
dareenka maalinkaasna hayaa fiirnaa micnaha marka haddaa rabto qof fiican inuu noloshaada kusoo aado waa in caqliyadaada mar walbaa wax ku xulataa micnaha nasiibku ma ku keeni doono wax xun iyo wax fiican laakiin adiga doorashada aad samaysay wax walba ku xiran yihiin mas-uuliyadda aad qaada marka haddii qof fiican uu kugu soo aado adaa doorasho sax sameeyey hadduu qof xun kugu soo aado adaa doorasho qaldan sameeyey nasiibna ku marmarsamoon nasiib filan adaa waxa mas-uulka adaa mas-uulka macnaha qof kasta nolosha uu doorto ku noolaan doonaa marka okay walaalkii Catoosh waxaa kaloo ku weydiinayaa qoys burburka ma ka qayb qaataan baraha bulshada aad iyo aad rasmi marka baraha bulshada fiiriso mararka qaarkood waxaas leedahay inta ugu badan gabdhaha Soomaalida waxaa waaye shayaadiin waa isleedahay sababtoo ah yacni darada wiil baa maalmaha arkay TikTok heystay oo gabadhiisa ay u tagayso oo gabadhiisa sabrays ugu tagaysay kumanaan gabar yacni gabdha ah baa arkay oo arrinkii si qaldan uga hadlaya oo negative ka dhigaya oo qoyskii yacni shaki kala gelinaya macnaha yacni qaarkood waxay ku dhaliilayeen hataa inuu wiilka uu telefoonku ku hadlayo magtumka u tagaysay telefoonka asoon tirtirin asoon waxyaalihii nadiifirin bay u tagtay ku xilay muusan ooyin muusan yeelin waxaas qalad waa macnaha labada qof ayaga is doortay xitaa dad xiriir ka dhexan dad isqabo waa macnaha marka gabar yar oo gurigeeda u joogto oo ayada aanan weligeed guursanin baa waxay rabto iska soo qorayso marka gabdhaha xoogaa isku laabtaano baraha bulshada marka qayb libaax leh ka qaataan qoys burbur badan waxaan hubaa qoysas badan inay ku kala tageen baraha bulshada qoysas badan inay lagu dhisan way jiraa baraha bulshada horta wax mucjisa waay qoysas badan oo lagu dhisay xitaa way jiraan macnaha marka noloshaada baraha bulshada ku xiran macnaha adii laftirkaaga commentiga aad qorayso ka fiirso comment adiga aad qortay qof dhan saameyn ku yeelan kara marka baraha bulshada negative badan way leeyihiin positive way leeyihiin so sida u isticmaalay ku xiran tahay please waxa aad qoraysid ka fiirso macnaha waxay sabab u noqon karaan aakhiradaada dhan inay halis gasho waxaa kaloo Catoosh ku weydiinayaa dhaqan wanaagsan balse bulsho ahaan nagu yar maxay tahay haddaan ku weydiiyo waxyaalo badan aa jiro laakiin hal qodob aan xulanayaa oo aan ugu talagalay dadka waalidiintooda ee geeriyoodeen ee daawanaya haddii hooyada iyo aabaha ay geeriyoodeen isla markaana ay ku aasan yihiin magaalo aad ku nooshahay fadlan si joogta ah qabrigooda u booqo tusaalahaan maalinka jimcada oo kale macnaha dhowr jimco oo lasoo dhaafay baa gabdhaha asxaabnahay waxaan u raacay qabri awood marka waxaan arkay dad kooban oo meesha imaanaya intaasoo kuna qabriyaan meesha ku marka yacni waalidka haddii geeriyoodaan ma aha inaa iloodo waa loo dhimanaya qof noolaanaya ma jiro adduunkan anaga israaracinayna waa waxyaalaha wanaagsan diintana faraysana ka mid tahay marka waalidiinta dadka waalidiintooda ay geeriyoodeen waxaa xasuusinayaa adduunkiiusan idinla tegin haddaa awoodid isla markaana ay joogto meel qof waalidka uu ku aasan yahay fadlan booqo si joogta u booqo oo soo duceeyo oo quraan soo akhri intaasoo dadka xasuusinaya ma jira hal shay oo ay tahay inuu iska ilaaliyo qof walba oo xiriir ku jiro waxyaalo badanaa jiro oo aan wanaagsanayn oo aynu ku dhaqanno markaa xiriir leenahay laakiin hal qodob baa xulanaya haddaa xiriir ku jirtid oo ay daawanaysid iska ilaali wax cabasho lahay macnaha weliba markaa rag tahay dumarku ma jecla complaining cabashada faraha badan gabadhii aa wacaysaa telefoonka kaa qaweynaya nagistaa wacaysaa maxaa iga qaban weysaa maantan albaabka la taagan tahay so is a problem dhibaato waaye dumarka gaar ahaan aad cabashada uma jeclo markaasi maan waxaa ku xusinayaa brother cabasho iska ilow haddaa xiriir samaynayso xitaa gabdhaha qofkan haddii uu qalad sameeyo si kas hadduu u sameeyo wuu ogyahay sababta u sameeyo mama jirto sababa u cabato haddii qaladka uu kam ka ahaana ma jirto sababa u cabato sababta qofkan ku talagal wixii kama ahayn marka cabashada wax fiican maaha dadka xiriirada le ee daawanaya waxaa xusinaya marka cabasho dhan noloshaada ka saar saaxiib sidoo kale waxaan ku weydiinayaa dumarka waxaa la yiri badi ma yaqaanaan dantooda aad iyo aad rasmi dumarka intooda ugu badan dareenkooda raacaan of course tusaale yar ku siinayaa waxaa laga yaabaa gabdhaha naga fursad badan tihiin gabar baa laga yaabaa in dhowr nin nolosheeda ay ku jiraan wax walba diyaar u laha lacag siina wax kasta siinaya gabadhaas nimankaas ma rabto ma yaqaanaan dumarku badanaa si nimankaas loo ilaashado waxay wacaysaa keliya markii baahi ninkaas ay u qabto asaga markuu soo wacayo soo raadinayo waxaa laga hal daqiiqa xitaa inaysan siinin halka mare wax uga baahatay wace markaas leedahay waxaas ii soo dir qofka dabaal ma horu ka dareemaya caadi dareemaya in danas bijash jirto marka yaani qofkan haduu ATM ku yahay xitaa ilaasho ma yaqaanaan inta marka dumarku munaafiqiin ma ahan dareenkooda inta badan raacaan taasa keenaysa marka in dumarku danaysta laakiin ragga danaystayaal waxaan kaga fiicannahay ereygaas marar badan lagu qabsada danaysto markaa ku leeyahay qofka inuu dantiisa garto dantiisa u noolaado waa wax fiican raggu dareen uma noolo meena ma fahanti ninkan dan uu leeyahay uu imaanaya dantiisa it's okay wax kale uma joogo dantooda ka dhex arkaan focuska ku saaran aad iyo aad
habeen badan ma isku soo noqon doonaa ani adiga aad iyo aad ma jira hal cudur oo Soomaalida intooda badan ama dhammaantood wada hayo cudurro badanaa jiro qabyaalada ay ka mid tahay waxyaalo kale ay ka mid yihiin laakiin hal shay xolanaya cajiib ah Soomaalida waxaa wada haya 90% inta qaangaarka waxa la yiraahdaa sexy frustration waxaa arkaysaa baraha bulshada hadda dil yara qof la soo qarxiyay way wada raadinayaan macna muuqaalka wada raadinayaan ii soo diray dad xitaa waxaa laga yaabaa niman reere leh ama naaga reere loo muuqaalka raadinaya arkaysaa macna problemku muxuu yahay marka cilmiga xishad malaan maalmaha waxaa baraha bulshada gaaraan TikTok ku arkay rag dhalinyaro oo dhaqaatiir ah oo waxyaalahaas cilmi ka sheekeeya oo dadka qaarkood ay caynayaan wax ka sheegayaan baahi sax ah oo taagan ee dhalinyarada ka hadlaan oo wax fiican marka Soomaalida sex frustration wadahay guys qof hadda muuqaalkiisa la soo qarxiyo wuxuu soo kordhinaa ma lahan laakiin dhibaatada dabcan wax as society haysto dhaqaatiirta marka barnaamijyada ama cilmiga noocaas la xiriira ka hadla waa dhiirigelinaya guys aad la idinku baahan yahay shaqada la wada leeyahay aad ma hasanta Catoosh baraha bulshada waqti badan ay ku jirtaa dadka waxaana ka mid tahay firfircoon oo waxyaalo walba u fiirsado waxyaalaha wanaagsan raadiyo ma jira lamaanayaal ma ka aragta ka yaabiye aad iyo aad waxyaalo badan jira dhaqamo cajiib ah oo lamaanayaasha leeyihiin waxa ka qusinaa laga yaabo qof kale caadis inay tahay waxa la yaabaysaa laga yaabo qof kale dhaqankiisa inay tahay waxa ceeb kula laga yaabo qof kale caadis inay tahay laakiin lamaanayaasha aniga igu indha adag ama iga yaabiyay oo ku gashta dharka isku eg inta soo qaad sawir iyo muuqaalo soo dhiga ayagoo I don't know noloshaas aad u adagta macna marka dadkaas ay iga yaabiyo kaliya ma rabo inaan qodobkaada ugu tarxto marka dadka lamaanayaasha ee dharka isku eg inta soo qaata baraha bulshada maxaa la dhahay sawirada soo dhigay hajijeena adiga dadkaas aan way ka life soo laakiin dadkaas aan iga yaabiyay waxa sameyn karmaa okay Catoosh sidoo kale halkii waxa ku weydiinaya waxa ugu qiimaha badan ee agtaada maxaa waaye waxa ugu qiimaha badan agteeda waa waqtigaani waqtigu waa wax ugu qaalisan oo Ilaahay uu nasiiyay dadka qaar waxyaalo kale laga yaabaa inay ka fikiraan laakiin Ilaahay cimrigu ku siiyay cimrigaaga marka uu dhamaado maal kasta oo aad leedahay magac kasta oo aad leedahay way dhamaanayaan macna marka waqtiga waa waxa aniga agteeda ugu qaalisan waa waxa dadka ku qiimeeyo waa waxa dadka ku kala saaro waa waxa xaaladaha iyo duruufaha ee nolosha marka ay yimaadaan aan u laabto macna waxa laga yaabaa waxba noloshaada ama xaalada adaga gashay marka aad tiraahdo waxaan shalam ku jiray maya maanta ku jira Soomaa it's okay bari waa ka bixi doonaa intaas xitaa encouragement fiican oo dhiirigelin fiican waa marka aniga waqtiga agteeda muhiim u ah aad u qaali og yahay thank you sidoo kale waxa ku weydiinayaa wiilal badan ayaa ku daawanayo barnaamijkan waxaan ku jirnaa qaybtiisa ugu dambayso haddaan ku dhaho ka faa'iideyso caawa anaa wariyay mogtahay wiilashaas ku daawanaya hal farin u gudbi maxaa u gudbin lahayd wiilashu waxaa leeyahay horna u dhahay markalna waa leeyahay flow you goals all girls will flow you saaxiib hamigaaga iyo hankaaga iyo visionkaaga raac dumarka aad daba cararayso jooji marka hamigaaga raacdo dumarka ayaga ku daba carari doona nin nolosha u toosan tahay dhaqaale haysta magac haysta sharaf lana agdiidaysa ma jirto ma fahanti marka wiilashu waxaan leeyahay hadaf nolosha ka yeelo hadafkaaga raac dumarka waa usoo laaban doontaa dumarka dhamaanayaan okay labadan su'aal ma kala haraan maadaama wiilasha fariin u dirtay sidoo kale gabdhahan haddaan ku dhaho hal fariin u reeb ama se u dir maxaa u diri lahayd gabdhaha mid tan kaaga dhawaan la eegana oo flow your mind all men will follow you dumarka dareenkooda raacan soo maha caqligaaga raac ragga dhanaa ku raaca ku daba ordi doona adigana markaad dareenkeed la ciyaar aa noqoto waxaa laga yaabaa nin maalin joog ahaan kaa raba inaad mustaqbalkaaga ka dhex aragto oo meel cidla uu kaaga tago saal cidligeeda waxaan ku leeyahay dareenkaaga intaa le oo ogahay dumaraatiin dareenkiina mar walba raacaysiin laakiin dareenkaaga intaa la laabtid meel dhig caqligaaga mar walba raaca mar kastoo caqligaaga aad raacdo waa hubaa halganka iyo hardanka ragga idin kala dhexeeya waa ka guulaysan doontaa nin walbana aduu ku rabi doonaa nin kasta wuxuu rabaa gabar qurux badan oo qiyam leh oo asturan oo xishood badan oo isku toosan oo rasmi oo kale ma fahanti marka saasa u noqoto waa ina caqligaaga raacda thank you Catoosh hal su'aal kala ku weydiinaya Catoosh oo wiilasha qusayso example ahaan wiila maanta gabar ka helayo wiilkaas gabadha markuu ka helay ayada gabadha ma ka helin waqtigiis ugu badan uu gelinaya wiilkaas gabadha siduu ku hanan lahaa ama uu kusoo jiidan lahaa uu sameynayaa the more uu gabadhaas waqtigiis u siiyo ayadana waa intaas way soo yara jilceysaa wax isdhehe oh my god this guy waa nice ama xaggiis u dhawaataa gabadhii markii ayadan fiiri markuu isaga rabe
dariska taday xanuustaan wuxuu dhihi jiray hay maamada dariska xanuusan ma hadda istaal geynaa for example siduu ugu weynaa ayadii aad jeclaanayso waqtigiisa dhan waa busy I don't know why waxa sababta nimanka ay u sameeyaan ayadii xanuunsanaysa awal darisku caawin jiraya ayadii xanuunsanaysa qalbi waa xanuunsanahay aniga busy ahay shaqo leeyahay computer adul fadhiyaa ma soo kici karo aniga aabahay safar ii diray aniga shaqaan ku mashquulsana why abo nimanka ay saa u sameeyaan oo maasanta rasmi su'aashan su'aal u eg barnaamijka dhexdiisa hadaa uga jawaab oo ahaa gabdhaha dhahay barta ninka marka adiga aadan rabin ee isaga uu ku rabo sida uu la dhaqanto ayuu kuula dhaqmi doonaa biri marka aad rabato macnaha su'aasha hadii weydiisay waa huba gabar kasta qalbigeeda macnaha bay ka dhex guuxaysaa waa wax dumarka ku wareersan yihiin laakiin ragga mucjiso waa macnaha ninka marka saa sheegto uu ku sameynayo yani kali inuu asigu jecel ama inuu ku roobis kama dhigna waxa horta ii sheegayso waa love bombing oo raggu ay sameeyaan yani ninkii inuu jecel wali ku tuso marka hore kadib shaqo marka ku soo dhacay isla ninkii isbedelay macnaha ki kala waa kiimaha aad kiimaha maxay ragga saas u sameeyaan dhowr ujeedo ninkan horta hadii si serious uu ku rabay oo ujeedo sax uu ka lahaa uma badin inuu isbedel lahaa markuu adigu ku helo macnaha ma fahant so waxaan uu sameeynayaa marka waxa noqon karta ujeedooyin kale tusaale ahaan ragga qaar waxay u sameeyeen waxay iska jecel yihiin challenge-ga waxay iska jecel yihiin marka hore oo ku adkeynta oo la dhaqmaysid inay wax ku guuleystaan ina ugu adkeysid marka wixii ku guuleysto oo iska baxaya meel kale oo wixii ka bilaabaya haddana meel kale loogu adkeeyo ku bilaab rag saas u sameysanayo nina waxa laga yaabaa waqtigiisii yani waxaas dadaal iyo juhd uu ku bixinaa inay sadhabkeen just for fun ka ahayd inuu kugu sameynayo mida waxa laga yaabaa in uu naag kale tusaalaan xiriir kale uu ka soo burburay oo isku mashquulinayay iska mootinay laga yaabaa ma fahant waxa marka ka wada waxay tahay yani hal ujeedo ragga kuma kalifto waxaas inay sameeyaan ujeedooyin badan jiri kara gabadha marka waxa laga rabaa sababtan ku dhahay ma aqligaaga raac marka aqligaaga raacdo nin ku gaadi karo ma jira meena laakiin dareenkaaga raacay waxaanu ninka ku sameeyana waxa is leedahay والله إنك كان في عمو أسوي جيسو you have to ask وأنا نفتح ويديس وين كان كوسمينا في رسيدة ده بوح أذي آذن كسبان قفك هدو كوسمي وأنا لبد تلاوي دي بقول دك أكيد واي قفك أنا أسكت سبتين وحنا وقت نحكوا قلنا دوك ده اسمه فري لانش مان وح قفك جودي أنا نكو قلنا وأنا أسوي ديس لكن أذيك ما في رسين جودي في واي وقت يسوي يقلي قفك مفيرني جودي فيرني وحنا لو سمينا وحنا واحد جراي ما مفهم وركي كون قبلها وحلا هاي فكرة قفك ممكن وقت إذا قلنا محاس ويدسان واي وقفك وقت إذا قلنا محيل كفايدة يا أديات qof kasta sideedaba uu ku sameeyo wax adiga aadan ka kasbanin bari meel cid loo kaaga tagi doonaa ma fahantaa qof kasta oo qiimo maanta adiga aadan lahayn oo aadan shaqaysan ku siinaayo waa fig waxaas ma fahant marka aad looga fiirsado aqligaaga raac ninku gaadi karma aad ma sintactosh wax ku arma jira may wan ku soo noqonaya laka caawiga dhantaay ku madcelinaya walaashii rasmileys oo ku farxsana barnaamijka quruxda badan ay la sameysay marka loo madcelinayna saaxiibadeen Afiora oo meeshan quruxda badan barnaamijka ku duubeena ah oo maqaayad ku taala xaafada Kilishwa lamaanayaasha aad ugu roonta meeshan waxa hal yimaad insha Allah haduu aalidmo rasmi ku madcelinaya su'aalaha quruxda badan ay weydiisay sida barnaamijka aad igala qayb qaadatay saa u soo ajiibtay inaad barnaamijka timaado ay la sameyso waxa ku leeyahay aad ma hasantahay aad madana booy harjeena ilaa intan la soo gaartay inaad ku caajisin daawashada barnaamijka qodobada aynu ka hadalnay wixii aragti aad nala qabto waxa nooga duwan tahay rasmi daway su'aalaha i weydiinaysay marar kale ma soo celin doonaa dabcan waxa soo waa dhankiina waxaan kaga tagaynaa saaxiibayaal cimri caafimaad bye